isii naftaana koday kooda macaa kulanti wacan dadweynaha bartaynan ku xidhan oo dhammaantiinba soo dhawaada nimco habbi oo masraxyada Soomaalida ka huleyshay heesta isii nafta oo soo baxday 2017 ayaa sanadkan 2021 cirka isku shareertay kadib markay qabsatay baraha bulshada qaabkay u qaraxday waa laga dheregsan yahay oo wargeysyada iyo warbaahinada caalamka qaada dhigay waxaan mowduuceenan kaga hadlaynaa nimco iyo heesteeda isii nafta may wada socdaan mise way kala hadheen shirkadihii badnaa ee daneynayay cidda la wareegtay iyo mustaqbalka fanka Soomaalida balse intaynaan u galin heestani nakupenda ama nakupenda sana waxaan isla eegaynaa heesaha Soomaalida heer caalami ku dhawaaday heesta sidaad ii ogeed ee ay qaaday Deeqa Axmed Geyd oo ah heestii ugu horeysay ee Soomaali ah oo 1 milyan ka gaadhay barta YouTube 20 sano kadib waxaa heestan dib u qaaday fanaanadii Tanya ee Norwegian-ka ahayd gabadhan oo mar Hargeysa tagtay heesa kalena qaada ayaa aad u daneyn jirtay dhaqanka iyo fanka Soomaalida waxaan kaloo soo qaadanaynaa heestii barbar oo bulshada baraha dhaxdooda marba dhinac isu tuurayeen waxa la arkayay shaqaalihii safaaradaha oo wada daadanayo taagnida iyo safafko la iska tuurayo duqeydii baa xitaa isa soo xasuustay oo barbar u duulayay fanaaniinta Soomaaliyeed heer caalami way gaareen calamada adduunka mar wada luxeen waad wada xusuusataan wacdarihii World Cup ee waving flag haddaba haddaan u soo daadegno habbi iyo heesta isii nafta nimco waa fanaanad kamid ah fanaaniinta jeelka cusub waxayna khadka soo gashay bilowga sanadkii 2015 Dadaab waa magaca heestii ugu horeysay ee ay fanka ku soo gashay waxayna soo saartay isla sanadka dhexdii nimco waxay qaaday heeso aad u badan oo halkan lagu soo koobi karin masraxyo badan bay soo taagneed iyadoo ka qayb qaadatay bandhig faneedyo fara badan oo meelo kala duwan ka dhacay annaga bahda Cabdi Askari Tube ahaan waxa sharaf weyn inoo ah inay nagala qayb qaadatay silsiladii hablaha wixishoodkii halkeebaad ku xorteen oo halkan ka sii deynay barnaamijyo kalena ay sanadkan gudahees nala soo saartay heesta isii nafta oo khadka ku jirtay muddo 5 sano ku dhow inta dhadhan waa lagu hayay oo Soomaalida u bay dhaxtaalay laakiin qaraxii ugu weyn wuxuu dhacay markay Soomaalida ka talawday oo caalamka u soo gudubtay TikTok la'aantii xagee la tagi lahaa horta Carabaha iyo Khaliijka ka bilaabatay kor u kaceedi oo soo koorsiiyay ilaa markii dambe madow iyo cadaan masraxyada adduunka la isu baasbaasay isla sanadkay soo baxday heestu way qaraxday oo waxaa jawaab degdeg ah soo diray xidiga reer Sweden Asad Faqdid taasoo lid ku ahayd jacaylkii nimco soo bandhigtay isagoo ku lahaasi kupendi wewe waxaa hubaal maanta hadday ku aadanaan lahayd inuu oran lahaa mimi pia nakupenda sana soo inaan ku nacabahay ana hayto moodanaydu ana ma xabaytak intii sikubendi mimi sana waa hawshii aan bilowday isii nafta iyo nuxurka ku jiro heesta waxaa dhadhan u yeelay 3 arrimood 1 miraha iyo luqadaha qalaad ee dhowrka ee dhaxtaalka looga dhigay 2 laxanka iyo musiga heeska waxa saaran naaxiyad iyo music waa yeelka iyo ciyaalkiiba kiciyay in looga mahad celiyana ay tahay macallimiintii bahasha sokoriyay ee macaankaad aragteen u yeelay qodobka saddexaad ee heesta qarxiyay waa gabadha codkeeda la yaab kale iyo muuqaalkeeda soo jiidashada leh ee qamaarka u xiran yahay waxa xusid mudan heestu markay baraha qabsanayso in dib loo baaray muuqaalka u dambeeyay ee heesta ee YouTube-ka ku jirayna la soo helay halkan waxaad ka aragtaan inuu muuqaalkan ka saameyn batay muuqaalkii dhowrka sano iska dhex yaalay baraha Soomaalida inta badan muuqaalada caadiga iyo heesahaba way daawadaan like ma saaraan tanse waa loogu dadaalay heerkana waxa gaarsiiyay ajaanibta oo nusuulka la taagayo la baqaylin muuqaalkana saas uu taariikhda ku galay oo uu ku noqon doona ka ugu like-ta badan dhanka Soomaalida ala kulli xaal ana ahibbak way naga tagtay dhinaca shirkadaha daneynaya ee soo codsaday inay hees kala wareegaan sidaad la socotaanba adduunka waxaa ka jira shirkado la shaqeeya fanaaniinta oo sidii heesii hirgalay oo kaleeto heestii dad badan soo jiidataba la wareegaan taasoo ka dhigan fanaanka iyo heesta inay isla socdaan oo ayna kala hadhaynin kadib heesta dib u habeen lagu sameeyaa musiciankii tumay baa la raadiyaa si xargihii laga tumay loo helo heestan waxaa la isku dayay in la qaato iyadoo aan loo soo marin dadkii iska lahaa
laakiinse waxa ku adkaaday helidda xargaha laxanka saaran si musigeedii loo helo taas ayaa keentay inay shirkado waaweyn oo musuq lahayn soo raadiyaan si markaa aan qarsoodi lahaynna loogu kala wareego maadaama bahda cabdi askari tube aad ku tuumaysaan xog badan oo ku saabsan heesta waxaan idiin xaqiijinaynaa in heeskii lala wareegay oo ay qaadatay shirkadda Polido oo hoos tagta shirkadda weyn ee Universal Music. Polido waa shirkad British ah oo inta badan soo saarta fanaaniinta ka soo shacbaxay bulshooyinka caalamka Afrikaan badanna ay ka mid yihiin. Waxaa la dhihi karaa waa shirkad ururisa codadka daayarta adduunka. shirkadaha sida weyn u raadinaya kuna soo bixi waayay waxa kamid ah shirkadda ugu weyn danka qaybinta iyo diiwaangelinta heesaha Sony Music qaybteeda Faransiiska. shirkaddan Sony Music oo hadda ka hor ay soo wada shaqeeyeen fanaaniin Soomaali ah mar walbana baadi goob ugu jirta inay gacanta ku dhigaan fanaan walba oo ka soo dhaxbax Soomaalida ayaa qaabkay wax u doonayeen u shaqeyn waayay laakiin waxay u eg tahay inayna ka hari doonin oo si walba ku raadin doonaan xitaa iyagoo og inay nimco heshiis kale ku jirto. shirkadaha kale ee sida weyn u raadinaya heestan oo ah farax kamid ah Sony Music waa kambaniga soo saaray rahi qaaday Damete Kusiito sida bani aadam ku ciyaaraya ee mar dunida qabsaday heesta isii nafta talowma waxay saari lahayn malow iyo masas ciyaaraya oo leh inaan ku jecelahay and I love you more than my life and I hip ya baby nakubina mina sana way jeedada hasikle waxaad maqashaan fanaan baa hees u qaraxday laakiin qaabkee fanaaniintu wax ku helayaan marka hore fanaanka waa gadan yahay waxa markaas meesha ka baxaya bandhig faneedyadii la iska qabsan jiray xafladaha aroosyada madaxweynayaashii loo heesi jiray ka qaybgalka sanad gurooyinka iyo in fanaanka hees kale soo dhigo bariisa bulshada haddii ay hees ku qabato meesha kaliya aad ku heesi karto waa qolkaaga jiifka adigoo kaliga iyo masraxyada lagu ogol yahay marka sida fanaanku xaaladiisu ay noqoto xagga isbeddelka ku imanaya waa in la siiyo lacag kuusan oo horumarisa advance payment heshiis 10 sano ahna lala galo heesta la suuq geeyo wixii ka soo baxana 50% uu fanaanku yeelanayo heesaagu markuu bandhig faneed qabanayo oo dhanka shirkadda ka socdo oo booking iyo tigidho la iibinayo wixii ka soo baxana 80% buu fanaanku yeelanayaa haddaan yara qeexno qaabka heesta lacag looga samaynayo waa sida soo dejisashada mareegaha heesaha lagu daabaco Spotify, iTunes, Amazon iyo wixii lamid ah sidoo kale uu isticmaalka programyada idaacadaha TV-yada kalaabiyada iyo cid walba oo isticmaasho qarashka uu ku socdaa qofkii si xun wax u raadiyana maxkamad baa taqaana mustaqbalka fanka Soomaalida iyo waxa laga baran karo heesta isii nafta horta wax kasta oo fiican dadkoo dhan baa wada jeclaada haddaan dhihi lahayn luuqadaha kala duwan kaliya heesta kor u qaaday maama Maryan Mursal hal erey oo English xitaa ma soo rogato Sony Music baana lagu jira marka waxba private-yada ha aadina oo English Swahili ama Carabi hadda ha bilaabina oo wixii qarxaya qaraxsan inta waa kaftanka fanka waxa laga baran karaa inuu fanku u baahan yahay dulqaad dadaal iyo farshaxan ku gaara inaad la soo baxdid bulshadana aadan ka dhax bixin oo kibir iyo isqaadqaad aan meelna lagu gaadhin nimco haatan waxay ku sugan tahay caasimadda Muqdisho dhawaan waxay soo saaraysaa muuqaalka heesta oo dib u habeen lagu sameeyay iyadoo lagu wado in lagu duubo meel ka baxsan Soomaaliya sida Nairobi ama Kampala waa Cabdi Askar oo idin leh dadaal mar baad gaadhi